nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi isagoo ka hadlaya kaalmada dadka inay isu kaalmeeyaan dadku wallahu fii cawna alcabdi maa kaana alcabdu fii cawna akhiih ilaahay wuxuu u kaalmeeyaa addoonka intuu addoonku walaalkiis u kaalmeynayo maanta bishaan waxa taa ma qaado meesha waa ku silacsanna sida anaga haysana waxa noo waxa bilaan madaxweynaha lacag buu noo qoray waa ka baxa meeshani waxa weeye muddo badan baa joogay aad iyo aad baan u xanuunsan baan ii keenay aad iyo aad baan dadku meeshan qofka u joogo ugu mahadcelinaya aad baan ugu xanuunsaday magaalada ana xanuunsan baan magaalada meeshan ii keenay meeshan aad baan ugu xanuunsan meeshan waxa weeye aad baan ugu caafimaday cabdi maxamed baa yiraahdaa meeshan waxa weeye aad iyo aad qofka jooga dadka joogo aad iyo aad baan dhibaataysan qof dumarana joogo waxa weeye dumarkana aad baan ugu mahadcelinaya waxaweye aad baan la tacaalay anagu xanuunsan baan la keenay hadii la keenay aad baan meeshan ugu caafimaday waxaweye wax macnaha garab ku siiyana wali ma aan hayno
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka hore salaamayaa dadka la daawanaya waxaan u hambalyeelayaa xaawo qaylaweyne oo ururka Nasrullah aad uga qayb qaatay dadka inuu meesha ku soo xareeyo runtii waad arkaysaan waa dad xanuunsan oo ilaahay sidan macnaha ka digay barnaamij baan sameynay fundraising loogu aruurinayo marka waxaan ka codsanaynaa dadka wadanka jooga iyo jaalayaha dibadda inay nagala qayb qaataan dadkan wax loogu qabanayo oo aad arkaysaan waxa kale oo jira dad iyagana sidoo kale indhoolayaasha waxa jira dhaweelayaasha waxa jira ciyaamiinta waxa jira ciyaal kale iyagana soo xanuunsan marka cid walba waa inaan u istaagnaa ka qayb qaadashadooda inaan caawino wabillahi tawfiiq guddigii kaalmo ee caawinayay masaakiinta hadda waxaad arkaysaan waa aabe iyo wiilkiisa oo naafa ah waxaa la yiraahdaa wiilka waxaa la yiraahdaa Abshir Maxamed Warsame wuxuu jiraa 8 sano iyo bar waa wiil naafa ah gacmaha uu ku socdaa marka uu soconayo aabona waxaa la yiraahdaa Maxamed Warsame oo lug baa go'an isagana marka wixii warbixin faahfaahinna aabahana siinay insha Allah ta'ala Abshir محمد أرسنة واحد كم تاي عريانة ذا فرق المجال ذا جروه بروح أنا أول بحسها حلي قاعد عريانتي يقاب كانوا لذات هاتن كجرته سلو كروح شرويل يرى بقول تاي عريانة السنة والبحنا يسيسينا بسم الله الرحمن الرحيم ما عريانة من تتو سبب الحلاوة يكون كان الحبل استيبر بشار الحبل وكسربان حنون كان قارن والحبل الشربان وحن قارن حنون ك وكسولا دقعان بوشي ما هي مرة تكور عرك كلا لا يشري حتى هذا تكور داو على بشري فرح ذو داو بقول ذو الله نضر الناس مرة وين ولا حساب مسلم فاهم وحنا كان إلهي حق اسمه يعني ولا حتى إن مهتم هنا نقول ما كان شغلنا ما هنا بعمر كان يقول لك هذا وروني واحد مشيرية مركا كنت محاسب عنده يحب يستفاد ده وشونا وقدام الرجال كسوي أن مركا ليه ما دبير تايركا أن واحد شكله هنا أورينتي كونسول بقول يسقاشن يلقادي قاب عن كي أياد أورينتي أما أورينتي هذا حقيقة روح عن كوش كاري أن waxaan la wada sawirkan yarka ma ku dhashay Curyaanimada mise kadib ay Curyaamo oo cudur yimid baa soo lix bil sharaxan ku qaarnay bismillahir rahmanir rahim waxaad arkaysaan waa Cabdullahi Salaad Cabdi waxaan ku guda jirnay barnaamijkii naafada ahaa oo aan wax ugu qabanaynay waa guddigii kaalmo qaar ka mid ah isla socda Cabdullahi waa stroke baa ku dhacay macnaha paralyze weeye shan iyo gaari baa la dhacay bishii 10aad sanadkii 1993 insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa Cabdullahi inaad ka qayb qaadan doontaan inaad soo caawisaan dadka la daawanaya gudaha iyo dibadda Cabdullahi Salaad Cabdi waxaad kala soo xiriiri kartaan telefoonada 25 29 eber 63 58 61 iyo telefoonka landline-ka 25 25 eber 84 54 67 waad mahadsantihiin insha Allah isaga kulli warbixinta kale ee siinaya hadduu alla idmo Cabdinuur Salaad Cabdi waxaad ka mid tahay dadka naafada ah ku nool magaalada Garowe waxaad warbixin naga siisaa qaabkii aad u naafooday iyo taariikhda intii aad naafada ku dhex jirtay taasi walaal waxa ku naafooday 1993 bishii 10aad baa gaaray la dhac si xun baan u dhaawacmay nabaraa iyo gaarmadaha dhinaceena barleys noqday sidii la ku jiro wax dhaqaatiirna ma helin ma isku day marna ama la isku day in loo geeyo daawo ama dhaqaatiir ka baxsan dalka maya
واحد جانسي أو كنت جماهير مرة أي مسلم مثل واحد عالم عاد كشيء هذا كله عن كذا عن قوة عالم جابه خبيرات ما سوي كمان أن مرشح هذا هو سبب ياسك عاوي هذا أظن هذا إسكاي ساعد كل شوية هذا إسكاي من القنوات اللغة أن وحرورة ملاذها أو ما هي تقف حاسة مثل جاري يقول على واحد هيد كلية المج هذا واحد لنا شيء أن ولا لها مثل هو يلا قوي ولا مرشح هذا واسيله هذا ما وش قادر ويه هرسيسا dadka ku daawanaya maxaa u soo jeedin lahayd aan soo jeedinahay xag istaanay xag sidoo in xag daawo iyo xag caawimo la ifiyo la markaa sheeg si ay dadku kula soo xiriiraan waa lixdan iyo saddex konton iyo sideed soddon iyo kow halka aad joogto si ay dadku faahfaahin dheeraad uga helaan wada ku sii daraya ماشي شفت قروي بسم الله الرحمن الرحيم waxaad arkaysaan waa hooyo Soomaaliyeed oo la yiraahdo Samsam Cabdullaahi Cilmi waxaa dhinac fadhiya laba ciyaal ay dhashay Masfal Maxamuud Guuleed oo 9 jir ah waa gabadha iyo Cabdulcasiis Maxamed Guuleed oo 5 jir ah wixii aad ugu tawarucaysaan fadlan ugu soo hagaajiya Samsam Cabdullaahi Cilmi oo telefonkeedu yahay 25 eber oo garow ah numberkan uu yahay 27 95 66 wixii faahfaahina kala soo xiriira hadduu ilaahay idmo emailka u kaalmee @gmail.com wabillahi tawfiiq adoo ku bilaabay hooy magacaaga waxaad ka warbixisaa carruurtan yararka ee curyaamada xilligii curyaameen iyo qaabkii iyo nolosha ay haatan ku sugan yihiin والله لقد وحي ريالتي يضع الناس كشقيسان وحنون كوافي انت ناس كانوا بيسي وحفظ يوافواي إلا كدور بلاد كبعد وانا عارفة اني حنون صنطهاي انت كدن بيسي واسكاء ناس كان اسكنوا شي كبعد الناس كوافداي وحفظ يوافواي ويسكتشي جدي أظن مدهب 3 سنة ميلها سفرية بلاد انت يرايد ويسكا حنون صنعي حاطنا وح حبيبتان أدو أفضل لو بشيء عنا لوها وسيء المدرسة معي وحياتها ما عنده وقفت كتر عليها وقصة حني تعرفين كينا ليا ويلكنا ويلك سوا صعب برا ذهب عن طريقنا إنه لقتي عنتها هيو بربري هاي وعنتنا لو وحبكوا قصرين حالات بيت الطيري عنتنا لو وحبكوا قصرين لقتنا حوصك وطه وان تعبت المشكلة لو ذيك عمود بقى تعبت ضربة كان وقبو طوال وان وقت تعبت طبعا وقبو ضربا وقلوشها لو يصدق واحد سواحد دنا برلس دنا قبو مسكودو ان اد wax dhakhtar ama daaweyn aad u sameeysan labadan ilmood yaryar wiilka may laakiin gabadha oo sheeran meel geeyay dhakhtar gaal qayo kan geeyay dhakhtarkii neerbaha وهي مركز المدة وححي الملوضة نيرفي انت ما حلقتي المدة لو ساعة انت كالموت صدق والله كده بلوض يوسف قريب ما بحي سكال عيه وحيث مسئي عند شيء حركات في المدى الشيء عقب بدانية هو مركز حركات سمية وقال يسمس ورأيك بنايا اشوي سنوايا كنت عايز صدق دماء كل عليه واوي وحمرك إلى كرب قراءة وح إلى قفطة أبي إلى غلغالية هو يعني لو يشمني أبي هو يوالدين أبوه نوانيس كشيء وسويس كعليان إلى كرب قراءة داود داود سكحات لو حنين مسير
daawada saddex bilood si qiimaha inta ayo markii saddex bilood كنينك أشتري سبعة وقت أشتري وتمشي لا وقت كل بس ما أنا تغيير أنا أقصد معها أما أنت سانك قوتي ضرب كل شيء سيلين جاي أنا هو هذا أنت أنا واحد سنة وما أعرف يعني أنا أقول جاي كل شيء أما فرحي كل شيء ناسيها أنا عرّتن أبوه واحد شيء إنه اسمه عريان يعني من عريان وياه كورة نسير سواء نسكلو كتشبنا وسكا حنوسنا وأيلنا سكنا حنوسنا قبل أن يرتع أنه أنت بدن أنت أمر سيسان ونوعين عن شراء عنها دورها ما ليش كده إن ذلك الدرجة وحلا وقت هدي كده سيد شيكتي وحلا وقبل وايه أنا هدي أنا هرت السماية وقيل قيلي أبنا أنا سير قرب شو من عد كلا إلى قرب شو غفل باوفيري أنا وفقوا ما كمان كفنا هدي أنا هذا الناس أريس السنة ولا لغت عنه أن ما يسكت هنا هذا عالم وكلا وشيكتي سيد وحوقفتان ذلك الدرجة وكلا وروح بحنا خبيراتي كم جاين هوي أنا هاي المهي بن هيا هذا واحد من هالسوي كذا سلمان بدأت خداوان يا الصوماليات بتكسر هذا waxaan u soo jeedinaa hadii ilaahay ila garab galayo inaan afeen caawina oo aan dibadaha kala quusto hadii aan heli karo ku codsanaya aan si dadku la soo xiriiraan teleefankaaga iyo halka aad joogto xaafadda bilan baan ku noolahay magaalada ay teleefankaagana 27 daawadayaal haatan waxaan la taaganahay gudoomiyaha ururka naafada ee la yiraahdo SDC abshir wuxuu nooga warbixinayaa xaaladda naafada magaalada Garowe isaguna laftiisu waxa uu ka mid yahay naafada ku dhaqan magaalada Garowe abshir nooga warbixino bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin walaalayaal sida saaka dhanba aad ku dhex jirteen aad u jeedeen naafada Garowe waxaanu ka soo maray wax yar oo kooban mana hadal la soo koobi karo oo maalin iyo labo iyo saddex lagu soo koobi karo intii la doono way naafada maxay tahay ku nool magaalada Garowe waxaynu u tagnay intoodii ugu dayaca badnayd oo maaragtay sida hadda qoladan aan la joogno oo kaleeto iyo kuwa kale aynu soo maray waa dadka ugu problemka iyo dhibaatada badan oo maaragtay ugu hooseeya dadka naafada kuwa badan oo iyaga la mid ah ama kaliitaana way jiri karaan laakiin waqtiga aynu helin inaynu soo booqano dadka naafada ah aniga hadda waxaan la shaqaynayay ilaa iyo 2003 iyo hadda maanta aynu ku jirno 2010 intaas waxaanu ahayn dhalinyarada u doodaya dadka naafada ah nasiib daro ma aanan helin inaanu macnaha aanu gaaro himiladayadii oo ahayd inaanu dadka wax fiican u qabano balse waa iska dadaalaynay oo waxaan ku jiraa dadaalkii welina kama aanu daalin dadaalkii waan wadnaa tan kaleeto dadka muslimiinta ah oo adduunka ku nool oo nadaawanaya waxaanu ka codsanaynaa inay dadka naafada ah oo dhibaataysan oo walaalahooda ay u soo kaalmeeyaan anigu waxaan ahay dadkaas dadka u dooda maahay anigu naafo mana doonayo caawimo balse waxaan caawimada u raadinayaa waa dadka iyaga ah aniga iyo ciddii ila macahiba waxaanu goosanay inaanu dadka walaalaha ee naafada ah aanu maaragtay u samayno gurmad oo aan gurmadka kaliya aan u samaynayna wuxuu noqday inaan u hadalno oo u doodno maadaama aanu ku dhaafin wax tabara iyo wax dhaqaalaha waxaanu isku daynay oo hadeerba dadaal dheeraada aad u jeedaan inaanu samaynay inaanu samayno dhaqdhaqaaq oo aanu samayno dadka inaanu gaarsiino dhibaatadooda dibadda waxaanu leenahay dadka ku sugan dibadda iyo dalkaba walaalayaal anagu waa idin soo gaarsiinay waajibaadka naga saaraa dadkaas wuxuu ahaa inaanu idin tusno idinkana waajibaadka idin saaran waxa weeye inaad u kaalmaysaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi isagoo ka hadlaya kaalmada dadka inay isu kaalmeeyaan dadku wallahu fii cawna alcabdi maa kaana alcabdu fii cawna akhiih ilaahay wuxuu u kaalmeeyaa addoonka intuu addoonku walaalkiis u kaalmaynayo